السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada channelkaygan webdev. maalinta hore waxaan sameynay qaybta hore waxaan sameynay nav bartan qaybtan sare my website home about surfaces and contact qaybtaas sare aan sameynay. marka maanta qaybtan labaad waxaan sameyn doonaa qaybtan dhexe oo sawirka ku yaalo iyo qaybtan saddexaad ee qoraal ku qoran yahay. marka labada qaybood baan maanta sameyn doonaa insha Allah. marka aan bilowno. ciddii ku cusub channelkan haddaad doonaysid inaad baratid qaabka loo sameeyo qaybtaas sare oo isticmaali kartid website-ka doontaad sameynaysid qaybta koowaad soo daawo. markaan guda galno xagga nav barta hoosteeda ayaan ku sameyn doonaa qaybtan dhexe ee sawirka wadata. marka qaybtan dhexe waxaa la dhahaa waxaan bixin doonaa hero ayaan bixin doonaa. haddaad marka hero baa la dhahaa waxaan ku dhex ridnaa iyadana container baan ku dhex ridnaa. marka h1 baan dooranaya waxaan ku qoranaa welcome to my website. Welcome to my website. Ku qoranaa alright. Welcome to my website. Welcome to my website. hoostana waxaa hoos dhigi doonaa qoraal yar oo paragraph ah. idina waxaan ku qori doonaa waxaa isticmaali doonaa lorem intaad ku qortid waxaad taabanaysaa 10. qaybtaas saas ku dhaaf. marka qaybtan iminkaan sameynay waxaa ku hoos qarsoontay nav bartanaa qarinaysaa nav bartaasi ku hoos jirtaa. iminka qaybtan sameynay nav bartaasi ku hoos jirtaa. iminkaan muxuu hagaajin doonaa qaybtaas. qaybtii haddaba qaybtii saddexaad waxaan sameyn doonaa iyadana qaybtii qoraal ku qoran iyadana waxaan bixin doonaa section dot container content section bahalka shaqeyn waaye dot sectionka waxaan doonayaa inuu 2 glass baan doonayaa inuu yeesho. glass waxaan bixinayaa container glasska labaadna content. intaa markaan sameeyo ciwaankii baan u sameynayaa qaybta qoraalkayga timerka soo baxsa. ciwaankana waxaan uga jeedaa content 1. ciwaankaasaan uga jeedaa content 1 taa soo baxday. waxaa iyadana b tagta waxaan isticmaali doonaa lorem waxaan isticmaali doonaa lorem 50 baan iska isticmaali doonaa. qaybtaas saas ku dhantay. haddana waxaan baahanay content 2 qaybta labaad saan sameynay iyadana isla intii un baan sameynaa. iyadana waxaan soo qaadanaa h3. marka h3 h2 way ka yartahay. marka ciwaanka yar waa content 2. iyadana paragraphka isticmaalna lorem iyadana waxaan isticmaalayaa 50 baan odhanay. iminka isku dhex daadsan yahay. markaan hagaajino haddaba iminka stylinkii baan u gelinahay. haddaba saan u style garayn waxaan sameynaa waxaan teginaa fileka style.css. marka waxaa ugu horreysiinaa qaybta dhexe ee sawirka ah. hero
ayaan ugu horreysiinaa. Waxaan doonayaa inaan sawir xagga dambe ka dhigo background image URL-kii URL-ka waxaan isticmaalayaa pixel.com. waxaad nii dhigi doonaa sawirka doonta isticmaali kartaa amba sawirkayga haddaad doonaysa inaad isticmaashid xagga hoose nii dhigi doonaa. nii dhigi doonaa waa kaa sawirkii soo baxay. hadaba background image-kii waa xagaa ka muuqda. haddaan doonaya inaan background image idhaaho waa inaan idhaaho muxuu ahaa waxaan doonaya inaan height siiyo 100 feet. 100 feet waxaa looga jeedaa screen oo dhan buu qaadanayaa. 100 feet height okay screen oo dhan buu qaadanayaa. hadaba sawirkan yara hagaajinaya. sawirkan doonaya hagaajiyo sawirka waxaan odhanayaa background repeat waxaan ka dhigayaa no repeat. sawirka inaan soo noqon background size-ka waxaan odhan doonaa cover. waxaan kala doonaya hagaajiyo background position-ka waxaan ka dhigayaa xagga hoose iyo dhexda. saas ku leeyahay. waxaan doonayaa inaan qoraalka muxuu hagaajiyo color-ka white ka dhigo. waa kaa sawirka caadi color-ka white ka dhigo. weli qoraalkaas soo bixi lahaa waan hagaajinaa. waxaan ku hagaajin display flex baan odhan karnaa. display flex waxaan odhan karnaa justify content centerkan geynaa. hadda iminka align item center iminka imanaysaa dhexda. waa kaa dhexda yimi iminka qoraalkii align item center position. marka iminka waa kaa haddaan weynaysiiyo waa kaa dhexdu joogaa sawirka. haddaan yaraan ku yar daro sida caadi wada aragtaan. caadi aan yaro weynaysiiyo sida dhammaantiin wada aragtaan. position relative baa odhani. margin bottom baan siin doonaa 20 pix. bimacnaa saan uga fogeeyo muxuu ahaa contentiga saan uga fogeeyo. okay qaybtaas saas ku dhantay. haddaba waxaan doonayaa set index siiyo -2. hadaba overlay baan doonaya inaan muxuu ahaa duldhigo amba qoraalkii muxuu ahaa qurux badan baan doonaya qoraalka usoo saaro. marka waxaan sameynaa hp before content baa odhanaa. position absolute baan siinaa positionka. top waxaan siinaa 0. xag sare bidixda waxaan siinayaa 0. width-ka amba balaca waxaan siinayaa 100%. height-ka waxaan siinayaa 100%. hadaba background color-ka waxaan siinayaa RGBA. madow baan ka dhigayaa waa 0. madowga 3 0 weeyaan 0. xaggan waa 0. xagganna waxa weeyaan waa opacity-ga amba color-ku suu muuqdo waxaan ka dhigayaa 0.5. waxaan kaloo siinayaa set index -1. waxaan doonayaa inaan hadaba qaybtan dhameeyey wataa iminka si clear iminka qurux badantay usoo baxeen. welcome to my website. si qurux badan bay iminka usoo baxeen. qurux badan bay usoo baxeen.
waxaan maleynayaa xaggan waxa iga maqan waxaan doonayaa welcome to my website ka inaan bartan ka dhigay iyada xaggan waxa iga maqan inaan ku daro muxuu ahaa text align center baa iga maqan text align oo welcome to my website ayuu bartan ka dhigaya wakaa haddaba aan style garayno muxuu ahaa ciwaanadan haddaba hoose content 1 iyo content 2 hoosta isaga jiraan marka aan kala fogeyno marka waxaan sameynaa dot hero weli kuwan hortaan dhameeyo welcome to my website ku farta way yaryarta waxaan doonayaa yaro waaweynaysiiyo farta waxaan doonayaa markaa h1 hero ciwaanka welcome to my website waxa weeyaan waa h1 weeyaan markaa waxaan odhanayaa waxaan ka dhigayaa font size-ka 46 pixel margin waxaan doonayaa hoosta isaga jiraan labadaas inaan kala fogeeyo marginka waxaan odhanayaa kor baanu yar qaadayaa 0.20 px marka aan kala yar fogeeyey waxaan doonayaa b tagta welcome to my website ka hooseysa inaan iyadana style gareeyo hero iyadana waan ka yareysiinaya font size-ka waxaan ka dhigi doonaa 20 px waxaan doonayaa hoosta isaga jiraan letter spacing waxaan doonayaa ka dhigo 1 pixel qaybtaasaa ku dhammaynay waataa qaybtaasaas ku dhan tahay marka waxay noo harsan qaybtan hoose content 1 iyo content 2 ga inaan iyadana style garayno iyadana aan galno iyadana waxaan style garaynaa marka ugu horeysa ciwaanada waa content h2 iyo .content h3 labadaas ay kala ahaayeen marka labadaas style garayno marka font size-ka waxaan ka dhigi doonaa 150% waxaan doonayaa inaan ka yar fogeeyo content 1-ka qoraalka ka hooseeya inaan ka fogeeyaan doonayaa waxaan odhan doonaa 20 pixel 0 top and right waataa kala yar fogaadeen haddana waxaan yaray marka style garaynayaa paragraphkan biyada hoosta iskaga jiraan iyagana aan kala fogeeyo midabkana aan ka bedelo marka iyagana waxaan odhanayaa content b colorka aan ka bedelo colorka waxaan siin doonaa 555 ayaan siin doonaa waa ka uu ka bedelmay colorkii laynanku hoosta isaga jiraan aan kala yar fogeeyo line height baa la dhahaa 30 pixel marka imika way kala fogaadeen laynankii xarfahana aan kala yar fogeeyo letter spacing 1.2 pixel xarfihiina waan kala fogeeyey waa ka website-keenii dhammaystiran navbarty waataa home about qaybtan hero section-ka content 1-ka content 2-ga waxaad samayseen nooca website waxaad doonto sawirka doontaad ku bedelan karaysaa xagga my website waxaad doontaad ku qoran karaysaa xaggan home about surface contact Somali baad ku qori karaysaa waxaad doontid adaa contentskan waxaad doontaad ku qoran kartaa wixii subscribe next time-ka amba marka kalena waxaan samayn doonaa iyadana website kale oo ka duwan sidan aad baad mahadsantihiin